السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري هذا ولا لهي قالقة ملو البوتشوكتان جنة قد ونسان وفاطمة فيلسن قفك إذن لها الله وأنا وفاطمة فيلسنة وحان إدين رجيني إن العافيمات قبطان الحمد لله رب العالمين. إن أنا جنا سيدو كلا هدي أي تايمركي كوباد النصاب وقتي وحان سيحش من لك أقعد سنة إن سبسكرايب تنو صارتو لايك تدعس كجاسي كومنتي رأيك كسوقر يا وحان كوري يلا كرهاري soo dhawaada walaalahay qaaliga mar kale iyo meel walba joogtaan qof kastaba meeshuu joogiyo maqaamkiisu ku salaaman yahay aad baan idinka mahad celinayaa daawashadiina iyo maxaa la dhihi jiray walaaltinimadiina iyo waxaan ku iri kommentiyadiina quruxda badan dhammaantiin aad baan idinku mahad celinayaa aad baad u mahadsan tihiin waxaa la yidhi abaal nin gala waa la arkay hee nin guda lama arkin marka waa idin mahad celinayaa asxaabay waxaan rabaa bal inaan wax yar ka dhaho wiilkeeni dee khatarta ahaa wiilkeeni fiicnaa master xalliye yaa master xalliye wiil baa wuxuu yidhi xogtiisii oo dhan waa soo helay buu yidhi waan raadiyey wiilkaasi teeda kale wuxuu sheegay inuu la ahaa wiilkan saaxiib oo micnaha ay ahaayeen dad isku asxaab ahoo dadka maaragtay markay isku meel degan yihiin oo kale dhalinyarada meeshaa degan dadda is yaqaano waayo moogta oo saaxiibo iska ah dad saas inay ahaayeen buu soo sheegay marka wiilkani yaa wiilkii dhanaaya khatarta hogaamiyaha ahaa dee wakaa waxaan ku yidhi bacmadow buu ka daba keenay bacmadow buu soo qaatay marka wuxuu yidhi balaynu isla aragno wuxuu isagu inoo sheego baynu isla arkayna isla joogno bal waxaan ka dhihi doono iyo waxayna la tahay iyo bal hadalka waxaynu ka fahanno waa isla arkaynaa insha allah ugu dambayn xog dhammaystiran oo ku saabsan master xalliye ninkii gabdhuhu ay ka maag waayeen ninka gabdhaha godkooda ugu galay intaanan bilaabin muuqaalka ka hor horta waxaan idinka codsanayaa yarkaa dhallinyarada inaa u ducaysaan marka hore xogo badan baa idinkaga hayaa oo idiin sheegi doona haddii ay beedmo laakiin marka hore waxaan idinka codsanayaa inaad yarkaan u ducaysaan horta aan ku bilaabe sida hore inu kugu sheegayba horta yarkaan wuxuu ku nool yahay xarunta dalka Kenya waa magaalada Nairobi wuxuuna ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkaas ku dhaqan ee Soomaalida ah waa nin dhalinyaro ah oo firfircoon oo codkar ah marka koowaad sida ayni sheegayba xiriir baan leenahay waana isnaqaanaa oo yacni inkastoo aanan waayahan ismaqlin laakiin waa isnaqaanaa qaar badan oo gabdhaha ay ugu horeyso baa mar walba waxay isweydiiyaan ninka dumarka maxaa ku diray qof walba markuu mustaqbalka inta noloshiisa ka dhiman wuxuu rajeynayaa inuu awlaad dhalo awlaadaasna rag iyo dumar bay isugu jiri karaan kuwa badan baa caynayay kuwa badan baa taageersanaa kuwa badan baa dhaliilsanaa oo kasoo horjeeday kuwana way taageersanaa oo wala dhacsanaayeen fikirkiisa laakiin waxaan kaga dhacayaa wixii ninkan ku qasbay inuu arrintan ka hadlo ama nacaybka intaas la eg oo dumarka Soomaaliyeed gaarsiiyo waxaan saaka la hadlay dhalinyaro aad ugu dhow asaga oo aad ugu kalsoon yahay oo Nairobi isla joogaan baa waxaan weydiiyey maadaama aanu numberka iga qabanayn aniga kaliyana ma ahane rag xataa rabay in mawduuc live ah inta isla soo galaan oo ka wada hadlaan dumarka iyo asagoo dumarka ka soo horjeeday iyo ayagoo dumarka taageersan inay live soo wada galaan buu ka diiday oo qaar blog saaray qaar numberantooda uu iska xiray marka saake waxaan wacay dhalinyaro ka agdhow oo Nairobi la joogta waxaan weydiiyey ninkan saan wuu dhaamay markii aan Nairobi uga soo tagay maxaa ku dhacay waxa la ii sheegay ninkan horta arrintan inay u geysay gabar uu jeclaa oo ku xumaysay gabadhaas ayada ah ayaa waxay gaarsiisay wiilkaas inuu gaaro heer uu isla sheekaysto noloshana uu ku dhawaado inuu xataa naco waxa ku dhacay depression waxa loo yaqaano waxa weeye xaalad adag buu galay dadkii buu ka dhex baxay waa maqalay wuxuu yidhi wiilkii waynu maqalay wiilkan wuxuu sheegay inay wiilka saaxiibo ahaayeen oo dad asxaaba ay ahaayeen teeda kale wuxuu sheegay in uu taleefanka ka qaban waayo oo isaga keliya uusa ahayne niman xataa rabay inay life la soo koraan oo maxaa life ay isla imaadaan TikTok
oo deedna isagana uu ra'yigiisa ka hadlo iyaguna ay gabdhaha difaacaan kuwaas xataa wuu ka qaban waayo buu haddee kuwa uu ku saxsan yahayo ya adoo nin madaxweyne fii kasoo qaad magaalo xukuma nin mucaarada ma keensanayo soo maaha haddii uu lacala kasoo degana qoluu ku xidhaa ilaa uu ka tarxiilayo uu ka celinayo soo maaha ilaa dee mucaaradnimaduu meesha la imaanayaa marka adoo waxaan ku ihi meel madaxweyne ka mucaarad maxaa u doonane soo maaha mucaarad maxaad u doonan waa waxba wuxuu sheegay marka teeda kale wuxuu sheegay wiilkan in lasoo khiyaanay waa laga yaabaa xaliya hadalladiisa qaar mar uu yiri baa jiray anigaa daanyeer soo ahaa aniga waa maqlay isagoo dhahaya fideoyadaas waa arkay waa laga yaabaa adiga ama khiyaano siday rabtaba ugu soo dhacday inay kusoo dhacday way dhici kartaa soo ma aha wuxuu sheegay inuu yahay qof oo depression uu ku dhacay oo dhibaatadaas ay xanuun u keentay taasna wuu sheegay aniga laakiin ilama aha qof xanuunsan inuu yahay ninka fikiradan arkay keenaya saa arkay dadka u waaninaya saad aragtay waxaan ku idhi saqiir iyo kabiir ya raggi intuu hoggaan ku xidhay saa waxaan ku idhi amarkiisa uga u daba qaateen ma u malayna inuu xanuunsan yahay hadduu qofku xanuunsan yahay lacalla hadalladiisa way isdhaafdhaafi lahaayeen marba wax buu sheegi lahaa muusan noqdeen qof oo hal go-aan leh oo hal wax bes ka hadla inuusan noqdeen baa u malaynayaa soo ma aha qof xanuunsan dee dadka qof kasta iska garanaya haddii weliba dee xagga maskaxda uu qofka uu buuq iyo waxaas iskaga fura waxyaalo badan baa iskaga khaldamaya marka ani waxay ila tahay horta ya depressionka inaan waxba ka jirin saasay aniga ila tahay dhicitaankana dee waaba waxa uu horta fikirkaba u keenay teeda kale wiilka markuu hadlaayo mararka uu qaylinayo iyo hadallada marmarka qaarkood cayda ee uu ku daraayo iska dhaaf caadi marka kow uu si fiican u hadlaayo si sax ah marar uu waxaa jira si degan u hadlayo meel fadhiyo oo uu si fiican u hadlaayo hadalladiisa markaad fiirisa xikmad baa ku jirta qof caqli badan weeye waa uun caqligii iyo xikmaddii intii laysku daray qof ah si u hadlaayo deganaanshaha meeshuu ka hadlaayo maxaa dhihi jiray fogideeda dee wax la malayn karo ma aha maxaa la dhihi jiray horta nimanka dhibaatada sheeganaya ee heeraha leh baddooda kuma jirno wixii reero ah baddooda kuma jirno laakiin sheekadan kale ee shukaansiga ah haddii xataa sidaa uu isagu hadda u keenay hadalka fikirkaas loo hirgeliyo anigu waxaan aaminsanahay 100% ya wax badan oo maanta khaldan inay saxsamayaan aad u khaldan inay saxsamayaan ama wiilasha ha ka khaldanaadaan ama gabdhaha ka khaldanaadaan wax badan oo khaldan inay saxsamayaan sababtoo ah hadalka badanaa yaraanaya dadkan meelaha isu raacraacaya yaraanaya ya sawiradan bilaayadan laysu dirdiraysaa yaraanaysa ya fadeexadan uun maalin kasta taagan way yaraan lahayd gabadh kasta si sharaf leh u joogi lahayd waxaa maqlaysaa gabadhii wiilba saaxiibaana waa soo cashaynaynaa guryihii casho lagama karinin miya maxay tahay wareegi iyo cashada iyo waxaa la sheegaya soo maa waa khalad lacagtuba waata adduun rogtay lacagta ha la haysto ya gabdhuhu lacag waa haystaan dadkoodu waa siiyaan ha ku shoobin garaystaan oo maxaa dhihi jiray waxay rabaan ha ku qabsadaan oo gurigoodana ha joogaan wiil lacagtiisna ha iska daayaan halkaa nimco kalena way ka soo baxdayoo gabdhihii xaasaska ahaana ya ducada waa inay ugu daraan dee xaliye sababtoo ah dee ninkaagi hadduu gabadh shukaansado awaa shukaansigii ka xanaaqsanaa lacag loo dirayna haddaad aragto dee muraayaddaa ku jabaysa muraayadda dhash waa ku jabaysaa baan ku idhi laa shaka marka waxaan ku idhi hadalkii basaa ka xanaaqsanayde lacag loogu dirayna markaad aragto waa qaracmaysaa marka dee nimankii xaasaska lahaa gabdhaha intay shukaansaan lacagta siinayene halka waxaan ku idhi lacagtii waa baajinayaan marka waa baajinayaan gabdhahana mid baa idin leeyahay wiilashii daayeeray noqdeen daayeerku waa iska tegey lacagtii waa bixin waaye waxaana akhrinaysaan iska daaye lacagta waxaa dhahdaan wiilashina siinaayeen way ku mahadsanaayeen faakihaysiay ahayd
lacag waa haysanay yaa waa noogu darayeen is adkeeya lacagta wiilasha hadday hadda bixin waayaan ma u baahannahay dhaha maxay tahay lacagti baa lasoo diri waayey iyo waa tegay iyo waxaa calaacalka badan iska daaya soo maaha iska daaya oo waxaasee laydinka maqlin markaa soo hadashaan caydana iska daaya maxaa u caynaysin qof fikiruu dhahay hadal buu sheegay hadalku qofku sheegay intii saxsan ka dheh inta khaldan ka tag maxaa laysu caynaa cayd hala iska daayo cayd wax fiican ma aha fikirkaaga ka dhiibo waxaa dhahdaa lacagta annaga wiilashuna siinaya waa ku mahadsanaayeen taleefanaday noo soo diraya walaaltinimo ahayd waa ku mahadsanaayeen yaa abaala uga haynay haddana haddii xataa ayna sii waayeen oo ayba xataa iyagu ayna nooba soo dirin kiina la dhashaa noo gadaaya dhaha aabbahay baa noo gadaaya dhaha mar raba taleefon la-aan iyo lacag la-aan idinma hayso moogta laakiin calaacalka iska daaya lacagti baa lasoo diri waaye iyo faakahaysay ahayd dhaha wixii faakahaysayna waa laga maarmaa soo maaha dhiiggaan ugu kicinina walaalayaal isgeejiya oo wiilashana waxaad dhigta wiilashana cayada laga yareeyo magacyada xunna laga yareeyo yaa taasaan anigu idin leeyahay dee saasaan idinkaga tegayaa asxaabay wixii ra'yigaaga ah commentiga dhac kusoo sii fikirkaaga ugu soo darso subscribe tahay naga hilmaamin yaa naga mid noqo